madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa u hambalyeeyay maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed ee maskax iyo muruqba geliyay dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena waxaan xasuusanahay dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku lahaayeen sooyaalka dalkeena ayagoo saldhig u ahaa halgankii xornimo doonka iyo aasaaskii qarannimadeena inkastoo shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen duruufo adag sanadihii la soo dhaafay haddana waxay muujiyeen hawlkarnimo iyo dhabar adayg ayagoona fashiliyay yoolka argagixisada al-shabaab ee ku aadan kala dhantaalidda ummadda Soomaaliyeed waxaan taasi tiiraayo la u dirayaa waalidiinta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxdooda iyo muruqooga ayagoo ugu adeegaya dalkooga iyo dadkooga nafta ku waayay falalka ay soo maleegeen argagixisadu dowladda federaalka Soomaaliya waxay xoog saartay dhamaystirka iyo sharciga shaqaalaha oo xaqiijinaya inay ku shaqeeyaan xuquuq dhameystiran iyo deegaan shaqo fiyow sidoo kale waxaan mudnaanta siinay kor u qaadida fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xaqiijinta mushahar ku filan noloshooda taasoo uga gol leenahay yareynta shaqo la'aaneed ee ka jirta dalka Soomaaliya waxaan dardargelinaynaa dadaalada ku aadan xoojinta iskaashatooyinka dalka ururinta shaqaalaha iyo ururinta bulshada rayida si aan u adkayno xuquuqda shaqaalaha horumarka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa